mahadsantihiin inaad maxay ahayd barnaamijkan ra'yiga ku weydiinaysaa way fiican tahay hadduu ilaahay yidhaaho laba nuqdadood baan ka hadlayaa qaybtan buuggan Manexe uu nagu soo kordhiyey qaybta ugu horeysa waxa weeyaan een doonay inaan taabto waxa weeyaan horta buuggani waa ku mahadsan yahay Cumar Kaahin Allahu naxariiste wuxuu ka tagay buug dhaxalgala oo maxay ahayd taariikhdii jeexaya oo tusaya runa ka sheegaya taasi waa qaybta ugu horeysa marka waxa weeyaan su'aalo badan waa ka jawaabay laakiin su'aalo badan oo kalena wuu kicinayaa moogtahay oo waxaad isweydiinaysaa hadday qaybtii sidaa tahay si taariikhda dhabta loo helo waa in la heli karo dadkii kale iyakuna ka qayb qaatay sida imiga ka soo qaado Soomaaliya qaybtay ku lahayd oo Siciid Samatar oo safiirka ahaa iyo kuwa gudahaba waa in la soo wareysan karo la heli karo qaybtay ka qaateen kuwa Djibouti oo kale hadii la eegana dadkii ka qayb galay Muuse Axmed Idris oo isaguna lagu gaaro intuu maxay ahayd nool yahay oo bal qaybtu ka qayb sidoo uga qayb galay la heli karo waxaan ogaa Cumar Cusmaan Raabo oo kale uu qoray laakiin hadii su'aalo kale loo qabo waa la weydiin karaa Ali Caarif laftiis in la soo heli karo oo bal goos actor weyn buu meeshan ka yahay ka in la soo heli karo taasina way tahay marka taasi waa qaybta hore qaybta labaad waxa buuggani wuxuu cajaa'ib ku yahay jeexaya oo arkaysa qabiilka siduu maxay ahayd gaalku u sumaynayo qabiilkoo maxay ahayd hab nooc loo noolaaday lagu shirkoobi karaa oo aanan ahayn sida the tribe nation-ka maxay association-nada laakiin marka hawgaalku isticmaalayo waa sumaynaya oo tii ahaanaysay tii ahayd qabiilkii ahaa maxay ahayd litacarafu wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ilan litacarafu ay noqonayso tub maxay ahayd gaalkii aw sumeeyey oo waxaad arkaysaa siduu qayqaybinayo bilowga waxaad arkaysaa inuu dadkii deegaanka yihiin dabadeedna waa la soo qaadayaa waxa la kala leeyahay Afar iyo Soomaali haddana Soomaalidii waa la dhaxgalay la sii qayqaybinaya ka gaalku waxaad arkaysaa inuu maxay ahayd qolo qaar kamida dadka meesha jooga haw ku adeegsanaysi haw u duleeysta kuwa kale ama ku jajabiyo marka dambana waxay noqonaysaa in loo wada duloobay isaga ilaa maantana waxaad arkaysaa siday ku dhisan tahay cadaalad darrada ku dhisan tahay maxay ahayd salka lagu dhisay qabyaaladda kada wax hagaagsan kama soo bixi karaan gaalkaana ka faa'iideysanayo loo wada shaqeynaya oo halkay ciise lillaah ka noqon lahayd oo dadku maxay ahayd inna akramakum indallahi wa atqaakum ay ka qaadan lahaayeen waxay ka qaadanayaan maxay ahayd inuu gaalkaasi ku shaqeysto waliina maanta loo shaqeynaya gaalkaas oo maxay ahayd hal isweydiina su'aalada in maxay ahayd dantiisa sidoo ugu fushanayo nabadda magaalada ka jirta haw isagu waxaad arkaysaa sidoo u haynayo u danaysanayo oo dawladaha kalena u burburinayo marka loo soo noqdo ilaahayna hana hagaajiyo oo dadkeena nabad iyo wanaag ilaahay ha ku soo dabaalo haddii ilaahay yiraaho waa sida iyo ahayd akhrisi wanaagsan buugaas salaamu calaykum waraxmatullah salaamu calaykum waxaan rabaa inaan iyar ra'yigayga ka dhiibto buugga Manexe waxa weeyaan haddaba walaalayaal buuggan Manexe oo soo qoreen dadkii gobonimada u soo halgamay marka waa buug taariikhiya markaan u yaruman inaan rabo waxaan ka hadlaa inta gumaysiga gaalku haddaba waxaad walaala isweydiisaan waxa Djibouti u haysto gaalku ilaa maanta waxa Djibouti u haysta danaha u haysto waa maxay inta dabadeed waxaan oran lahaa haddaba gaalku xilli kasta wuxuu ku andacoodaa yiraahaa Djibouti aniga difaacaya marka difaaca Djibouti dalka Djibouti ayaan xaggan u joogaa laakiin arinta waxa beeniyay dagaalkii ka dhacay Eritrea iyo Djibouti taasi oo difaaci gaalka ku soo koomay isagoo oo siinaya sir military iyo raashin amba gas waxyaalo caynkaas isagoo siinaya ayay ku soo koomatay difaaci hawlaha wadankan u fadhiya
waxaan odhan lahaa haddaba dagaalkaa ka dhacaya iminka halkaasi waa dagaal haydana ugu jirto gaalada markaan leeyahay waa gumaysigii waddanka joogayey gumaysigan kale iminka isaguna yimidee ee muslimka ma garanaysaa la dagaalamaya xaggan u soo degay iyo cadowgii soo jireenka oo xabashi oon garanayno markaa haddaba walaalayaal haddaba dagaalka maanta ka dhacaya laba wax buu keeni karaa haddaba haddaan niga hadlo midda ugu horreysa waxa weeyaan dagaalkaasoo lagu burburiyey waddanka Eritrea sidii Iraq loogu burburiyey Kuwait markay gashay oo Djibouti loo isticmaalo si Eritrea loo burburiyo haddii Eritrea la burburiyana waxa soo galaysa oo Eritrea qabsanaysa waa xabashidii talabaad waxay noqonaysaa ciidanka Djibouti oo lagu burburiyo dagaalkaasi haddii dagaalka ay ka qayb gali weydo waxa dhacaysa oo hubaala in ciidanka Djibouti la burburin doono mar haddii ciidanka la burburiyana waxa soo galaysa xamashi oo oranaysa anay nidaafacaya marka waxay noqonaysaa fursad xamashidu ay Djibouti ku soo gasho oo weligeed nooga bixin laakiin dagaalka haddaba maanta ay gaaladu wataan ee gumaysigii hangaranaynay ugu horeeya ku dhex jiro dadka wata waa inay u noqoto fursad haddaba qaaliya ayay maanta u tahay Djibouti si ciidankeega u habayso ugana dhigta ciidan dalka iyo dadkaba difaaci kara intaasaan odhan lahaa markaa haddaba gaalku walaalooy dadka walaalaheeda reer Djibouti waxaan u sheegayaa in cadaawad dheer ah noo hayo wanaagna noo hayn marka inagu haddaba haddaan reer Djiboutina waa inaan maskaxdeena isticmaalno si gaalka dhibaatadiisa aan iskaga tuurno waddankeena horumarkiisa iyo aayihiisana aan uga tashan lahayn wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh